ما سنتهي waxaan kaga mahad celinaynaa booqashada aad nagu timid shaqada aan laamiga ka hayno haddaan nahay waaxaha nadaafadda iyo howlaha guud iyo ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo mas'uul ka ah in magaaladan amarkaagana ka fulo nadiifna ay noqoto oo magaalo qurxan ay soo baxdo gudoomiye anagoo qaadanayna amarkaagii iyo taladaadii waxaan naga go'an inaan magaaladan bilicdeedii iyo nadiifkay ahayd aan gudoomiye aan soo celino waxaan ka shaqaynaynaa number 4 ilaa iyo X control afgooye waxyaabaha aan qabanayna waxa waaye inaan qashinka laamiga la keenaana aan mamnuucno kabarada jaadka iyo wax alla wixii nadaafad xumo ku ah deegaankanna aynu ka nadiifino haddii ilaahay idmo way naga go'an tahay waxaan fulinaynaa amarkaagii iyo talaadadii ahaa waxaan u baahanahay caasimad nadiifa waxaan u baahanahay caasimad la tartanta dhigeeda caasimadaha kale gudoomiye waa qaadanaa amarkaas haddaan nahay garbaha halkan ila jooga oo taliyuhu noogu weyn yahay agaasimaha guud ee howlaha guud iyo agaasimiga guud ee nadaafadda ah waxaan kaa ballan qaadaynaa 9 cisho gudahood inaad xamar qashin ka weydo waxaan kaaga mahad celinayaa inaad noo ogolaatay ganaaxii in magaaladan laga fuliyo dadka Soomaaliyeed ee maqaayadaha leh ee hoteelada leh ee laamiga qashinka keenaya waxaan leenahay war qashinka naga daaya gurigiina idinku iimaanaynaa waana idinka qaadaynaa haddii ilaahay idmo dan caawa kormeerka waxaan ku nimid waxay tahay howlihii baaxadda lahaa ee dawladda hoose xamar iyo maamulka gobolka banaadirba oo aad u jeedaan inaan rabno bilicdii caasimaddan inay ku soo noqoto sidii bartilmaameedkii aan jirtay caasimad bilicsan qurxan waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba waxaa nasiib darro ah ganacsade dukaankiisu alaab 1 milyan gaaraysa ku taalo haddana bannaankii wasaqa qashin yaallo oo nadaafad darro ay ka muuqato waxaan rabnaa ololahan isxilqaan ee dhanka nadaafadda waan hadda dardargelin cusub iyo laba kacleyn aan ku bilaabnay waxay tahay kow in waddadan laga bilaabo number 4 ilaa X control horta ina marshibiyadiga iyo dadka ku ganacsada inay sharci darro tahay halkan u jeedna gadaasheena wad u jeedaan hilib ayaa laamiga dhexdiisii lagu gadayaa runtii saas bilic ku soo noqonayso waa nadaafadna kuma imaanayso weliba iska daa nadaafada cudurrada iyo caafimaad darrada ee bulshada u keenayso ayaa aad maaragtay dhib weyn u geysan kara marka waxaan rabnaa dadka laga burburiyey howlihii ama saqafyadii inay ayagana fahmaan inay danta ugu jirto danta guud ayaa ah nadaafadda iyo bilicda caasimadda danahooda gaarka meelo kale ka heli karaan annagana u ballan qaadayna inaan kala shaqayn doono inay helaan goobo lagu ganacsado laakiin goobaha bilicda ah laamiyada lafdhabarka u ah dalka marshibiyadigooda in lagu ganacsado ma ogolaan doono waxaa bilaaban doona ganaax dukaankii ama ganacsadihii hortiisa wasaq lagu arkana isaga ayaa mas'uul ka noqon doona isna waa la ganaaxi doonaa muddo ayaan ku shaqaynaynay ololahan wacyigelin fara badan laakiin hadda waxaa timid wakhtigii hawsha la gudageli lahaa wakhtigii la isganaaxi lahaa wakhtigii ciddii nadaafad darrada caasimaddan ku hayso bulshada loo sheegi lahaa